بارك الله فيك وجزاك الله خير. سؤال شلبات شيخ. hooyadani waxay leedahay 14 sano ka hor ayaan carabaha ka soo galay saygeygina halkaas uu naga dambeeyay ninkaygii waxaan la raftaba caruurtayda iyo anana maaragtay barbaarsanayay 6 bilood ka hor aan soo galiyay Mareykan iyagoo caruurtii qaarna college-da ku jiraan qaarna maaragtay high schoolada iyo jaamacadaha cagacagaynayaan markii aan keenay alxamdulillah aad baan ugu wada faraxnay laakiin saygayga waxaa ku qafilan dabeecadii carabta caruurtiina mudday kala maqnaayeen kadibna caruurtii isagu way isku dhaceen anigii inaan kala qariyo oo mar baan u dhimriyo oo maar idhaahdo maaragtay war dadkani meeshan ay ku koreen isma aydaan aragin muddo ah u dhimriyo caruurta maaragtay si qaba ula hadal arrintii mushkiladii day after day bay sii siyaaday ilaa ay labadayada kalsoonidii dhexdayada halowday sheekh ninkaa haddii aan dalaaq dalka dalbado miyaan gafi buu leeyahay saa'ilkani falyatafadal mashkuuran sheekh. alxamdulilah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد 14 سنة كهر بان wadamada carabta ka imaaday zawjkayga ayaa iiga dambeeyay gadaal ayuu ka yimid goorta ay isu yimaadeen asaga iyo caruurtina way ismaan dhaafeen waxaan kuula talin lahaa maya ninka dalqadaha weydiisanin waayo maba aada ii sheegin wax sababi kara sharcan inaad dalqad weydiisato caruurta ay uu dhalay way ismaan dhaafi karaan laakiin wada hadal iyo in la is afgaradsiiyo ayaa wax lagu xallin karaaye caruurta ka xigsanin horta caruurta sidaad u dhashay buu asagana u dhalay weliba asagaa weliba shukaansiga bilaabo ku soo shukaansaday oo ilaahay sababka ooga dhigay tabaaraka wa tacaala ayaga isfahamsii shaqadaadu waxaa weeye inaad aabbaha iyo ilmaha isfahamsiiso meesha ay dhibaatadu ku jirtana aad si wanaagsan u qeexdo oo si fiican aad u garato war xaggay iska fahmi laayihiin carruurtan iyo aabbahood oo adiga iska fahmaysaan waa inaad qodobada intaad soo qaaddo boogta intaad soo qaaddo qodax waa inaad geliso si aad malaxda banaanka aad u keento muslixad waa inaad noqoto waa inaad isu keento waa inaad cilada si dhaba u ogaato waa inaad ayaga isfahamsiiso ma aha inuu reerkii odaygii ka maqnaa ee aad sugayseen markuu imaado inaad maxaa la yidhaahdaa ii keen aad reerka u duma ma aha odaygana waxaan leeyahay waa lagaa soo horreeyey waddamo waxaa la yimid aadan waddamadaadii ahayn meeshii aad odayga ku ahayd lama joogo haweenkani social baa kula qaba islaam walba oo waddamada galbeedka jooga iyo reer kastoo dhisan waxa weeyaan social baa reerkii la qaba reerka socialku waa cidda dawladda ah ee sharciga ku siisay ee meel ku dejisay ee lacagta ku siisa ayaa maxaa la yidhahdaa carruurta kula maamulata ee jaamacadaha lacag la-aanta ku siisay dadkaasaa mataqaanaa kula maamusha saa daraaddeed waa meel system gooni ah leh qaab kalaa looga dhaqmaa intaad isdejiso oo si fiican u qabaysato meesha baraf bay leedahay dhar adag aad xidhato bismillaahi dhahdo intaad fadhiisato war see loo nool yahay war geelayaa la jooga war arigayaa la jooga war loodayaa la jooga war meeshu qaniin ma leedahay war meeshu ma abaarba war meeshu ma barwaaqa war meesha wax colaada ma jira cidaan col lahayn oon ka cabsanayna ma jira maxaa iga soo horreeyey dhaqaalo xaggeed ka heshaan ilmuhu say wax u bartaan hadda maxaa idinka dhiman oo idinku kabaa war odayahow waajibkaa waa intaa war reer yahow maxaa idinka dhimanoo aniga iga bannaan oo booska aan buuxin kara waa kee ma tala ma odaynima ma aabbanimo guudba ma xoog baa layga rabaa maxaa idinka dhiman dariishadee bannaan oo aan buuxiyaa godkee bannaan oon buuxiyaa saas baa la yidhaahdaa ma ahane reer intaasi carruur teenagerood u timid ayagoo yaryarana 14 sano kugu dambaysay haddii hal mar madaxa islama geli kartaan
qaabab badan iyo siistamo fara badan baa la bartay halkan ay ku koreen ilaa ay waxbarashadii ay jaamacado iyo halka ay ka gaareen marka walaalka waxaan dhihi lahaa xanafta meeshii rag ay ku lahaan jireen lama jooge xanafta iyo xiniyaha ku shidaya intaad xoogaa iska dejiso isku day inaad waaqica iyo meeshan qaabka looga nool yahay inaad wax ka fahamtay biidnillahi tabaaraka wa tacaala islaantana waxaan leeyahay odaygu waa un odaygaagiye sharciga islaamku asagaa mas-uuliyaddii hayee oo alrijaalu qawaamuuna buu rabbi tabaaraka wa tacaala ha isdhihin oday meeshaa joogi tiri ma joogtide aniga idaba soco aniga idaba soco anigaa ku keenay anigaa ku biila anigaa suuqyada iyo magaalada iyo sooshallada iyo anaa ku baray saa daraaddeed aadan hadda anaa ku qaba ima aadan waad iqabi jirtay laakiin hadda anaa ku qaba gardarro garab og ma fahamti mawduuca iyo ihaanada raggu ma qaataane ninka intaad gogol iyo firaash iyo roog guduudan iyo ubax u fidiso shaqadii waata dhaqaalihii halkaasaa naga soo galaa fadal ku dhe noo maamul qaabkaasna noo maamul shaqadaadii waata intaad wakaa annaga intaan u baahan nahay maanta anuga nastaan rabaa dharkayga uunsi intaan ku shito inaan guriga dhex mushaaxaan rabaa wadaalka iga baaba'aan rabaa inaan seexdo baan rabaa maanta inaad shaqada igala wareegtaan rabaa inaad dhahdo ayaa lagaa doonaya odaygii inuu dareemo miskiin yaroo lasoo qabta iyo mukulaal yaroo guriga joogta oo farta loogu yeedhayayo laa yaliiq taasna way marro badan waxa loo kala boodayo saa daraaddeed reerka waxaan leeyahay hooyadu ha isfahamsiiso aabbaha iyo maxaa la yidhahdaa carruurta aabbuhuna ha istartiibiyo oo sida meesha looga nool yahay iyo qaanada ka banaan ha buuxiyo hooyadana ninka odayga xaqiisii oo alla siiyay ha u soo celiso oo sidii carruurta wiilkii ugu weynaa oo guriga ku soo biiray oo carruurtii ugu weynaayeen oo la dhaqmine si odaya oo akhyaarnimo ah oo la dhaqanto wallahu aclam